wasiirka wasaaradda beeraha jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Muumin Seed ayaa waxa uu sheegay inaanu jirin mucaarad adag oo kulmiye ka dambeeyay kaasi oo soo mari doona Somaliland. Axmed Muumin Seed ayaa sheegay waxqabadka madaxweyne Biixi uu dalka ka hirgeliyay ee ka markhaati kaci doonaan shacabku waxaana uu yiri waxa bariyaha runtii inta badan lagu soo noqonaya dhaliilo ama hadallada xisbiga mucaaradka لكن waxay u baahan tahay dawladda waxay u baahan tahay oo mucaaradku ay xaq u leeyihiin mar walba inay wax toosiyaan oo dhaweeyaan mucaarad xisbiga kulmiye ka adag soo maray Somaliland ma jiro إذا كان معنا وحلا من كذا لكن والمسؤول إلينا وحنا معارض ما يجوزنا ويقال كأوبان إن كأوبان تصحيح دونا لكن وحيابها رتي متربتنا أما حقيقة تفهم واحد غلطة وحب السبع كم ركع دوتا ويحقق هذا الجوين في المدن المصبح عبدي يبدي جيكي سواء كنت الأبسطين مالي الدولة وعقرة إن واحد قامته ويقول بسوا أمنية وادتي قلت وحيا أفضل يقصون مري يقول لك الرسول قالي كل عبرين يرسل قالي أبدا الجنوبية سوريا محمد قالي أمين يقولنا من حول وسيلي وحصل صار كتر كما كل الله قالوا وحصل صار